Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guys soo dhawaada youtube channelka naga daawan soo Malas official fadlan channelka daa ku cusubta subscribe noo saar aad iyo aad u mahadsantahay waa tahay maanta iyo muuqaal cusub maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay qaabkaad u qurxin lahayd muuqaaladaada adigoo isticmaalaya taleefankaaga si aad muuqaaladaada u qurxiso taleefankaaga waxaa laga baahan yahay in aad la soo degto labadan application waxa waa Winky application laxad waxa waa CapCut labadaas application marka la soo degto waxaad qurxin kartaa ama soo saar kartaa muuqaalo aad u qurux badan sida muuqaaladan oo kale muuqaalkan oo kale intaan ay kan badan waan ka soo saar kartaa muuqaaladaada adigoo isticmaalaya labadaas application iyo taleefankaaga hadda waa la tagay inaad isticmaasho computer ama software aad u waaweyn si aad muuqaal qurux badan u soo saarto adigoo isticmaalaya taleefankaaga iyo labadan application waxaad soo saar kartaa muuqaalo aad u qurux badan waxaan rajeynaa muuqaalka qurux badan inaad soo saarto si degan ila daawo muuqaalkan qaabka u habeeye adigoo isticmaalaya labadaas application haddii aad channelka cusubto subscribe noo saar haddaa hore noola joogtay muuqaalka noo like garay si ay u gaaraan muuqaaladeena dad badan sida adiga oo kale ah waa tahay guys isku soo naqad wanaagsan markan waxaan gudagalaynaa muuqaalkii hore aan ku soo balansaneen si aan muuqaalo qurux badan u soo saarno waxaan isticmaalaynaa labadan application marka ugu horeysa waxaan ku hormaraynaa applicationka Winky si aan muuqaalkeena muhiimada ay tahay aan soo saarno okay applicationkaaga ayaa soo galaysaa applicationkaaga markuu sidan kugu soo kaco qaybtan quality ayaad ka dooranaysaa kadib try now ayaad taabanaysaa halkan markuu ku keeno qaybtan video ayaad tagaysaa oo waxaad soo qaadanaysaa muuqaalka rabtid inaad habaysato ani muuqaalkaygan waa kana kadib okay ayaad taabanaysaa kadib muuqaalkaaga markaad sidan u soo qaadato sidan waay xariiqadan haddaad sidan u kormariso muuqaalka sidan ayuu isku bedelay oo isbedel ayaa ka dareemaysaa kaliya muhiimada applicationkan intaan bis ayaa ka rabnay markuu intaan noo qabto kadib save ayaa dhahaynaa muuqaalkana waa save garaysanayna kadib continue ayaa taabanayna marka muhiimada intaan la ahayd applicationkan kadib waa kasoo baxaysaa waxay imaanaynaa applicationka CapCut applicationka markuu kuu soo kaco new project ayaa taabanay marka new project aad daabatid waxaad dooranaysaa muuqaalkii hadda dib muuqaalkaaga markaad soo doorato muuqaalka qaybta ugu adag ama qaybta xooga saarayna waa qaybta applicationka CapCut kaliya hadda qaybtan waxaan ka rabnaa inaan kalarkani wax aan ka bedelno oo aan kalar qurux badan aan saarno ugu horeyn si aad kalar qurux badan u saartid heesta gadaal ayaa ka saxanaysaa laakiin muhiimadu waxa waaye kalarka si aad kalarka u seexatid filters ayaa ku dhufanaya qaybtan filterka ayaa soo galaysaa waxaa jiraan filtero aad u qurux badan marka adiga muuqaalkaaga adiga ayaa og waxaad saaranaysaa filterkii qurux badan ay is leedahay midka aan saartina aad saarato waajib maaha qasabna ma ku tihid oo jooska adiga ayaa iska leh intaan filterkii qurux badnaado ayaa saaranaysaa marka ana hadda filterkan ayaa ugu heystaa oo gabadhan markaad filterkan saarato qaybta opacity-da adartid waa ka yareynay adartid waa ka badinay marka ani waa buuxsanaa qaybta 100% ama ilaa iyo 90 inta u dhaxaysa ka dhiganaa kadib sax ayaa taabanay marka kalarka sidaas u saarato qaybta adjustment layerka ay imaanaysaa oo waxaa sameynaynaa aftiinka ama kalarada ayaa wax kala dareena okay marka qaabka aan u isticmaalo kaliya wadadaas raac waxaa la yaabaa muuqaalka hadda aan sameynayo mid qurux badan inaad soo saarto kadib waa qurxinaynaa okay muuqaalkii kalarkii waa saarnay marka hore muuqaalkan sidan ay ahaa waad dareemi kartaa farqiga u dhexeeya sidan iyo sidan marka muuqaalka sidan markuu ku ahaa haddaad sidan ka dhigto waa arki kartaa sidoo isku bedelay marka
kalarkeena ayaa ku buuxineynaa. kadib hadda muuqaalka waa kana sidan ayuu noo noqday. hadda wax cod ah ma noo saarna, heestii ayaa dib ka saareynaa. okay, heestiisa dib u saarto qaybtan audio ay imanaysaa, extract ay ku dhufanaysaa. kadib waxaa soo qaadaysaa muuqaalka rabta heestiisa, kadib waa saare muuqaalkii iyo qaabkii heestii sida kusoo baxay ila arag marka. okay, sida u jeedid muuqaalkeena qaabkan ayuu kusoo baxay. midkii hore iyo midkan waa dareemi kartaa labada faqri u dhexeeya. marka kadib save ayaa dheena muuqaalkeena waa soo degsaneynaa. okay, muuqaalkan sidan ayaa kusoo degsanay. adigana waa sameyn kartaa muuqaalkan iyo muuqaalo ka qurux badan adigoo isticmaalaya labada application. haddii aad si degan u daawato ama mar badan aad ku celiso, waad soo saari kartaa muuqaaladan iyo kuwa ka qurux badan. waxaan rajeynayaa in aad wax badan ka fahamtay muuqaal habeenta iyo muuqaal kala saarista. marka haddii ay noqoto in aad waxyaabo kale aad isoo weydiisaan muuqaal waa soo sameynaa. marka waxaan inoo ballanaa muuqaalka xiga. sidaas iyo nabadgelyo.